السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم with another video. walaalaha isjecel kusoo dhawaada video cusub. waxaan rabaa maanta inaan wacyigelin iyo bogaadin iyo dardaaran aan u jeediyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin, gaar ahaan wadamada qurbaha iyo Soomaaliya. waxaan niga digayaa oo aan niga dardaarmayaa inaad taxadir fiican aad samaysaan oo aad is ilaalisaan. hadalkayga waa waano iyo fariin iyo wacyigelin oo ku socota ummadda Soomaaliyeed sidaan hore aan nigu sheegay walaalayaal. waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta qodobo oo muhiim ah oo ku saabsan cudurka coronavirus-ka. sida hadda wadankeena kale Soomaaliya sida hadda waxa laga helay hal qof. waxyaalo kalena way iska jiraan oo qof kasta loo kontrolay ee laboorka. marka waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaaliyoy aan ismaqalno haddii dhigo wax lagu maqlo iyo aqli lagu fikiro ay aad leedihiin. waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalo badan amaro badan ee dawladda soo dejisay qodobyo ayaa jiro. laanta socdaalka iyo caafimaadka ayaa dawladda waxay soo amartay inay magaalada lagu soo rogo bandow eelboorada wadooyinka. adiga waxaan hadal ku daaliyaa duulimaadyada baabuurta. halaas waxay dawladda ka fikiraysaa caafimaadkiina. laakiin sida xalay oo kale aan daawanay clip xalay aan daawanayay maamooyin badan aan waxa arkay dhahayaan dawladda way ku qaldan tahay maadaama ay naga joojisay qaadkii. warqaadkan la joojiyay inagoo faa'iido niya been maama waxay dhahdaa 25 sano gaday ilmaan ka biilanayay. laguma diidan inaad ilmo ka biilanaysa 25 sano aad gadaysid. haddii waxyaalaha duduleelka oo kaga iman karo dhibka aad hadda aad iska daboolin hadhow cudurka wadanka si aad ugu faafo. waxaa waa hore Soomaali waxay u maatay biyo intay ku soo gaaraan la iska muusaa. marka fariinteeda iyo wacyigelinteeda waxaa weeye qaadka sidaad u jeedin waa la joojiyay. dawladda lacaga badan ay qoondaysay oo si ay uga hortagto caafimaadkii. marka dadka Soomaalidana waxaan farayaa inay ka hortag sameeyaan ay ilmahoodii micnaa ay xafidaan oo ma arkino xafidaad markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa ilmahoodii kontroolaan dadka jooga Soomaaliya. waxaa maasha Allah ilaahana badiyay meel walbaan joognaa. laakiin waxaa la rabaa dadka wadankeena qaasatan ku nool Soomaaliya meel walba ha ahaato, Kismaayo ha ahaato, Muqdisho ha ahaato, Baydhabo ha ahaato, Garow ha ahaato, Kalkacyo ha ahaato. marka waxaan rabaa inaad control samaysiin. hadda sida aad u jeedin bahaladan waa bahalada gacmaha la gashto. gacmaha waa la iskaga qaadaa. marka sidan aad u gashanaysaa ila soo daabta waad u jeedaan hadda tan waan geliyay maasha Allah. inkastoo caafimaadka dhanka alle uu ku jiro laakiin Ilaahay wuxuu ku dhahay dadaal garabkaagaan taaganahay. bahaladan intaada gashanin waxaa la rabaa gacmahaaga inaad dhaqdid. bahal waxaa jira sprayda la dhahayo oo ma arkino gacantaada aad ku shubaysid aad ku dhaqaysid. kabacdi bahaladana gashanaysa. kabacdi bahalka afkaad xiranaysa oo neefta waxaa waaye bahalka waxaa la iskaga qaadaa gacmaha oo markaas salaanta waxaa la iskaga qaadaa neefta oo haddaad afka xiran waxaa la iskaga qaadaa dharka ama shiyaha la isticmaalo oo markan qofka kale aan la isticmaalaysa hadduu cudurka qabo sida hadda saabuunta qabiiska oo kale. marka waxyaalo badanaa jiro. Ilaahay wuxuu ku dhahay dadaal laakiin garabkaagaan taaganahay. laakiin haddii adiga aad dadaalin oo dadaalkii aad ka seexatid bal ka waran cudurkii markaas waxaa waaye kuma gees mar ah. hadduu Ilaahay hanaga haayo. marka walaalaha isjecel waxaan niga bogaadinayaa wadamada qaar hadda bandow ayaa lagu soo rogay sida hadda walaalahayga oo kale hadda channelkan aan ku xiranayo Munir official aan daabtaa iyo liicaat oo kale hadda clipka hadda ugu dambeeyay aan daawanaya Munir official dadkii guriga lagu xiray sidii xabsi oo kale hoos booliska taagan banaanka ma bixi karaan. waxay halaasoo bisha halaha ka dhiman ay isticmaal karaan hal mar dadka soo adeegteen.
hadda waddankana aan joogo kala South Africa dad badanaa laga helay. waxaa horta cudurka maalintii ugu horeysa uu kugu dhaco lagama helay 14 days markaan ku leeyahay 14 beri hadduu cudurkaas kadib laga yaabo inuu kugu faafo. marka dada hadda guryaha lagu xanibay oo meel aan aadi karin oo sidaad meelaha dawladda dhan waa la xiray shaqooyinka. marka dadkaygu waxaan iga digayaa inaad ka hortag sameystaan. dawlad kaligeeda wax ma qaban karto. dawlad waxay wax ku tahay shacabkeeda. shacabka haddii dawladda ay ka taagneen oo shacabka dawladda uu wax uu la qabanin dawladdaas waxay qaban karta male. ka hortagga ugu horeeyo laamaha caafimaadka ma aha waa iniga. meelaha wasaqa iyo dustbinka iyo meelaha qashmanta lagu shubo haddaa iska fogeysaan ilmihiina aa kontroshaan. qaadkan waddankan Kenya qaadka uu soo dhiibayo faa'iido niuma jirto. wax faa'iido ama kan nigu jirin. Kenya waad u jeedaa cilaaqada naga dhaxeeyo haddii rabto xaasnimada ay qabto cudurkii ay qaadkan igu soo dari kartaa. hadduu marna haddii cudurka qaadka lagu soo daro oo waddanka gudaha uu u galo waa u dhamaatay. marka waxaan leeyahay walaal hadduu ku soo gaaro kliibkan walaalahaaga u gudbi. haddii ku soo gaarana share garay like comment wixii fariimo ahna commentiga noo reeb. subscribe-kiina waa noo muhiim. inaga waxaan nigu nahay inagana anaga waxaan wax nagu tiin walaalaha isjecel. faniskeygan waa sida familkayga sidoo hadda walaalkayga uu sheegay arrimaheena iyo Munir official iyo Soomaaliya idan meel walba aad joogtiin caafimaad bashbash iyo barwaaqo iyo baraaro ayaan rajaynayaa kliibkan iyo kliibka xigay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.